Assalaamu calaykum. Garowe waxaan u yimid cilmi baaris muhiim ahayd oo aan ku doonaynay inaan ku ogaano ra'yi caamka ama sida ay bulshadu u fikirayso. Waxa ugu weyn ee aanu daraasada ka rabnayna waxay ahayd inaanu ogaano cidda ay ummaddu aaminsan tahay. NGO maxalli ah ayaanu siinay inay qaadaan daraasadan. Inta badan ururada bulshadu ma gaarsiisna inay garan karaan khatarta ay leedahay xogaha bilaashka iyo aqoon darrada ay ku bixiyaan. Intooda badan waxa u daran lacagta yar misana faraguudkooda ah ay ka dheefayaan mashruuca loo keeno. Su'aalo dhowr ah oo aanu dejinay ay bulshada la dhex marayeen oo ay soo ururiyeen jawaabaha ay bulshadu ka bixisay. falaqaynta iyo natiijada ka soo baxda jawaabahooga waxaa ku xidhnaa mashaariic waaweyn oo laga fulin doono laba dal. Waa kuwan su'aalaha muhiimadda gaarka ah sii lahaa ayaan xiisaynaynay. Bulshadu iyay aaminsan tahay: 1. wadaadada, 2. salaadiinta, 3. siyaasiyiinta. Dacwadaha ayaad ku kalsoon tahay in ay kaa garsooraan: 1. garsoor dhaqan, 2. garsoor dawladeed, 3. garsoor culimo. Yaad ka qaadataa fasirka nolosha: 1. aqoonyahanka, 2. culimada, 3. abwaanada. Yaad ugu kalsooni badan tahay hadalkooda: 1. culimada, 2. salaadiinta, 3. siyaasiyiinta. yaa saamaynta ugu badan ku leh fikirkaaga: 1. culimada, 2. salaadiinta, 3. siyaasiyiinta. daraasadan waxaanu sidoo kale ku samaynay gobolka geeska inta Soomaalida ku dhaqan tahay. Waxyaabaha ka soo baxay ayaa xiise gaar lahaa. Celcelis ahaan Soomaalida 80% waxay aaminsan yihiin wadaadada. Way jireen meelo faraq yari jirtay mase badnayn. Tusaale ahaan, Garowe waxay 65% aaminsan yihiin culimada, halka ay salaadiinta aaminsan yihiin 30%. siyaasigana 5%. Hargeysa oo kale culimadu waxay aaminsan yihiin 70%, halka ay salaadiinta aaminsan yihiin 15%. siyaasigana ay aaminsan yihiin 15%. Jigjiga lagama go'aan qaadan karo maadaama uu jiray talis caburiyay xorriyaddii dadka lana dagaalamay culimada. Natiijadii ka soo baxday waxay u dhignay sida tan: Muqdisho 80% waa culimade, 17% salaadiinta iyo 3% siyaasiyiinta, halka Jabuuti ay ka noqotay 5% culimada, 5% siyaasiyiinta. NFD Kenya iyaduna sidan ayay noqotay: 70% waa culimada, 20% waa salaadiinta, 10% waa siyaasiyiinta. Markii aan u diray waxay noqotay daraasad xiise gelisay ururka. waxaa la soo saaray khubaro isugu jirta qaar bartay cilmi nafsiga, cilmi bulsho iyo qaar xul ah. nalamay wadaagin natiijada iyo sida ay wax uga faa'iideen. si weyn ayaa la ii bogaadiyey, taas baana ku gartay muhiimadda ay u leedahay. waxayna ii soo daayeen lacagtii aan dallacday oo dhammayd $35,000. kharashka igaga baxay Garowe iyo Hargeysa kama badnay 5,000 ilaa 5,800. Berge ayaa igu booriyay in lacagta aan wada siiyo ururada NGO-yada ee daraasada soo ururiyay. Markaan u sheegay in aanay lacagta xaq u lahayn oo kharashkooda oo qura ay leeyihiin, ayuu Berge bilaabay danta ugu jirta iyo waxay ka damacsan yihiin inay siiyaan lacag dheeraada. inta kale lacagta soo hadhay waxaanu ururada u siinaa si aanu laaluushka iyo musuqa u barno. waxaanu ku nidhaahnaa soo diyaariya warbixintii sida aad lacagtan u isticmaasheen. markaasay noo keenaan xisaabtii oo isku soo fadhiisiyeen annaga oo og raallina ka ah inay cunaan baaqiga. marka koowaad waxaanu ku kalifnaa inay been sheegaan, marka labaadna waxaanu cunsiinaa xaaraan. sidaas ayaanu tallaabo u dilnaa qofnimadiisa, una tirtirnaa wuxuu aaminsanaa ee run iyo xalaal ahayd. qofka markaa ayuu damiirkiisu doorsamaa. iyaguna way moogan yihiin in lacagta aanu siinayno ay tahay dagaal aanu ku burburinayno akhlaaqdooda iyo qiyamkooda. ninka dhalinyarta ah ee ka shaqeeya NGO-yadan waxaanu ku barbaarinaa musuqa iyo wax isdabamarinta. markaas waxaanu u naqaan madaxdii mustaqbalka ee sumaysnayd. kuwa aanu sumaynay markay madax noqdaan waxay noo sahashaa in ay dalkooda ku hagaasiyaan musuqa, annagana ay noo fuliyaan mashaariicda aynu wadanno. goobahan howlahan qarsoon lagu hayo dadka NGO-yada lagu barbaariyey waxay ku naanaysaan obedient agents, dirnayaal daacada. 100 sano in ku siman Soomaalidu waxay xog u aaminsanaayeen salaadiinta. dhicitaankii khilaafada Cusmaaniyiinta kadib waxaa hoos u dhacay saamayntoodii. Ingiriiska oo cuqaal ku sameeyay ayaa daciifiyey, halka dhaawacii u weynaa uu gaarsiiyey nidaamkii shuuciyadda ee dalka qabsaday intii u dhaxaysay 1969 ilaa 1989. Jack Marow wuxuu ku taliyey si aaminaadda yare ee ku harsan salaadiinta looga maydho waa in la maalgeliyo oo la dhiirigeliyo caleemasaarka salaadiin maqaarsaar ah oo aan cidna matelin. bulshadu aakhirka ayagaa iskood ugala noqon aaminaadda ay ku qabaan salaadiinta. taa beddelkeeda waa in la aaminsiiyo waxay ugu yeedheen labor elite oo u noqon doona indha ay ku socdaan iyo dhega ay wax ku maqlaan. mashruuca salaadiinta la ima idman, waxaanse tuhunsanahay inuu meel kale maray oo gamco kala fuliyeen. ururku wuxuu khatar u arkaa halka ay marayso aaminsanaanta culimadu. waxay soo bixiyeen mashruuc lagula dagaalamayo meeqaamkooda isla markaana lagu kala jarayo aaminaadda dhexdooda taal. waa culimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed. waxay soo dejiyeen qorshe fudud oo dib loogu kasbanayo qulubta dhalinyarada soo koraysa, kaas ay ula baxeen Buyback Project. hordhaca mashruucan waxay ku soo qoreen
dad meel ka hoggaan xidhan uma jeedin kartid jid kale kolka u horraysa waa inaad jartaa hoggaanka jaridda xadhigu waa inuu u dhacaa hab xirfadiisa waa in ay ku eedaysanaadaan kuwa laga jarayo dadku gacanta dhexe ee kala goynaysa dadka iyo culimmada waa in aanay sinaba u muuqan waxa qarsoon ayaa la ogaaday inuu ka saamayn badan yahay waxa muuqda malaha waa mid ka mid ah sababaha shaydaan ku doorbiday inuu ka qarsoomo kuwa uu sharka ugu yeedhayo iyaguna dariiqaas ayay mareen dad culimo ku xidhan way adag tahay inaad kaxaysoo aljihaysaa si loo dhiso bulsho cusub oo aynu reebno waa in la helaa dad hawadooda hogaamiso qalabka ugu weyn ee laga dhaxlay tijaabadii shuuciyadu samaysay waxaa kow ka ah awoodda dacaayaddu marka la faafiyo waa hub burburin kara aaminaada dadka culimada oo dhowr furimood laga weeraro waxaa jahwareer ku ridaysaa dadka kolka koowaad waxaa lagu weerarayaa run dhaliil ku ah marka xigtana run iyo been isku dhafan ugu dambayna been mutaxan oo aan lahayn meel ku gabad waxaana sidaa ku talinaya khubarada mashruuca qortay dhinaca kale waxay tixraac ahaan iigu soo direen buugta la kala yidhaahdo Art of Deception oo uu qoray Mark Francisco iyo kala yidhaahdo Third A oo ahaa buug lagu sheegay in 2020 uu dhulweynaha Shiinaha ka dilaaci doono xanuun kaasoo ku faafi doona caalamka intiisa kale xanuunkiina waxa uu noqday COVID-19 buugtani waxay ku barayaan sida loo fuliyo dad-doorinta aan la dareemin waxaa ku dhex sugan tijaabooyin si qarsoon loogu sameeyay bulshooyin kala gedisan oo caalamka oo dhan ka tirsan waana buug la waardiyo oo gamcaha ururka oo qura ku kooban loomana ogola inay cid kala gaadho waxaana laygu dardaaray inay ka bixin gacantayda tallaabadii u horreysay mashruucu wuxuu diyaarinayaa kulano hoose oo loo qabanayo dadka la dhacsan fikradda ilxaadka furfurnaanta reer galbeedka iyo fulka maafur bulsho mawduucyada qaar waxaa toos loo caddaynayaa oo waxaa la qorayaa dooda caawa fahamka nolosha ayaa wadaad u xidhay marka caadifadoodu kacdo habeenada hore ayaa marka dambe laga hadlayaa dhaliisha culimada oo run ah halkaa marka ay marayso ayaa baraha bulshada lagu faafinayaa dacaayado ka dhan ah culimada oo ay qoreen dad la guneeyey waa paid writers ama qoraayo been abuur ah oo aan jirin oo ay u yaqaanaan ghost authors maqaaladii oo daabacan ayaa la soo dhex dhigayaa oo lagu odhanayaa bulshada waa ay nala aragtaa dabarka inoo muuqda intaas kadib waxaa laga dhex helayaa qaar dhiiran xabadxabadaas ayaa gaar loola baxayaa oo lagu gubaabinayaa in ay ka hadlaan oo ay wax ka yidhaahdaan runta ooyeysa muddo yar gudaheed waxaa la helay qaar hadla oo wax qora weliba wax bulshadu berigii hore xeerin jirtay waa taa goortu bilaabmayo dabarfurka bulsho cusub oo ku dhisan qas iyo fawdo intaas kadib gadaal ayaanu u baxnaa oo daaha dabadiisa ayaanu ka daawanaa silsilada furantay iyo dacaayadaha u faafay sida xawliga ah dirinayaal badan oo bilaa gunno ah ayaa hawsha qaata oo iskood u qabta shaqo aanay garanayn cid leh iyo cid u diratay toona jahliga qarnigan waa uu ka awood badan yahay jahligii hore waa jahli shahaado sita jaahilku hal aanu ku dhiiran karin ayuu ku dhiiranayaa jaahilka shahaadada dhabarka lagaga qoray ee lagu yidhi aqoon-yahan baa tahay aqoon-yahanka zamankanna waa jaahilka runta ah marka looga qiyaas qaato nuunsanaanta hawsha aanu bilownay farahayaga way ka baxdaa waxaanay noqotaa tusbax furta oo ay cid weliba soo gasho ciyaartuna waxay sii dhabaqdaa marka culimada iyo caamadu isku muujad ka soo galaan dunida aynu ku noolahay qofkii ka gaabiya inuu fahmo sida qayrkii u degeen shaxda way adag tahay inuu isna la dhigo midka aan garanayn sida khiyaano loo gunto miyaa fahmi kara sida loo furo kaan arkayn tabtuu u dhaqaaqa sharku miyaa raadguri kara xalka shifadiisa qofka aan aqoon sida wax loo lumiyo miyaa fahmi kara tabta wax loo hanuuniyo nafta ay aayad u noqon weyday gudcurka miyaa ku cibro qaadan kara xujada iftiinka kuwa u nisbo sheegta sida loo dhiso bulsho cusub ayaa ka marakacaya awoodda qur-aanka ku sugan waxa uu mid ii qiray in aayadda ka hadlaysa hubinta warka ee ku cad suuratul xujuraat ay daawo iyo ka hortagba u tahay dacaayad iyo idaylkeed bulshada xukunka iyo xikmadda haysataa lagama lib keeni karo wuxuuse kadabkood go'ay maalintay ka jeestaan waana marka ay jabeen aanu si fudud uga guulaysanay wadaadka Soomaaliga waxa uu u baahan yahay inuu waaqici noqdo oo uu barto ciyaarta qaybkooda ay ciyaarayaan iyo shaxda ay dhigayaan kuwa sharka faafinaya haddii aanay sidaas samayn ma difaaci karaan ummadda ay hormuudka u yihiin iyo manhajka ay u taagan yihiin toona islaamku waa xikmad ee waa in la helaa cid xambaarsan xikmaddaas qur'aanka haddii aan la helin dawlad fulisa oo ku dhaqanta lama helayo nolol quruxsan oo xikmad ku dhisan tala ilaalinaya inaanay dhicinna waa taas waxay soo eegtahay in waqti dhow aan la joojin karin maadaama oo mar labaad la toosiyey eeluxaqii waxaa la soo gaadhay qaylo cusub oo ka imanaysa gacanka cadmeed baabulmandab iyo badweynta hindiya